Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Lektion 33 casharkeena 33aad. Die vier Deutschenpfeile afarta xaaladood ee luqadda Jarmalku ay leedahay waxaa loo yaqaanaa kasus. Kasus macnaheedu waxa weeye xaalad amba dhacdo. Afarta xaaladood waxaa loo kala yaqaanaa nominative, accusative, dative iyo genitive. Waxaynu baranaynaa oo aynu ka bilaabaynaa xaaladda ugu horeysa amba dhacdada ugu horeysa oo ah nominative. Xaaladda nominative-ka si aad u fahantaan wuxuu yahay nominative-ku amba waxay tahay xaaladda nominative-ku aynu eegno jumladahan soo socda. Tusaalaha u horeeya Asha ist ledig. Asha waa keli. Das Haus ist klein. Gurigaasi wuu yar yahay. Tusaalaha u horeeya Asha iyo tusaalaha labaad Das Haus ayaa ah subjectiga ama ficil sameeyaha jumladda. Haddaba subjectigaas ama ficil sameeyaha jumladdaas ayaa ah nominative-ka amba xaaladda nominative-ka. Jumlad waxay ka kooban tahay subject iyo verb. Haddaba subjectiga jumladda ayaa mar kasta ah nominative-ka. Haddaba subjectiga wuxuu noqon karaa noun oo ah magac amba pronoun oo ah magac u yaal. Haddii aadan garanayn wuxuu pronoun yahay, dib ugu noqo casharkeenii ka sheekeynayay pronoun-ka. Ein Fall zeigt die Funktion eines Nomens oder Pronomens im Satz. Xaalad ama dhacdo waxayna tustaa shaqada magac amba magac u yaal ee jumladda. Ka bilowna u horeysa Ich gehe. Anigu waan tegayaa. Geht. Yaa tegaya. Ficil sameeyaha ama subjectigu waa qofka wax qabanaya amba wax sameynaya. Ich bleibe. Anigu waan joogayaa. Yaa joogaya. Aniga ayaa ah ficil sameeyaha. Du liest. Adigu waad akhriyaysaa. Yaa wax akhriyaya ama kuma wax akhriyaya. Du waa adiga ayaa ah ficil sameeyaha. Sie schläft. Iyadu way hurdaa. Yaa hurda waa iyada ayaa ah ficil sameeyaha ama subjectiga. Du schreibst. Adigu waad qoraysaa. Yaa wax qoraya waa adiga. Marka adiga ayaa ah subjectiga ama ficil sameeyaha. Qofka wax sameynaya amba wax qoraya ayaa ah ficil sameeyaha amba subjectiga. Nu eegna tusaalahan kale. Person qofka. Wer ist das? Waa kuma kaasi? Das ist Mohammed. Kaasi waa Mohammed. Haddaba mar kasta oo subjectiga ama ficil sameeyuhu uu yahay qof, wuxuu ka jawaabayaa su-aasha ah wer kuma. Taas oo macnaheedu yahay qofkaasi ayaa ah nominative-ka ama xaaladda nominative. So aynu eegna ta kale. Sache shay amba wax. Was ist das? Waa maxay waxaasi? Das ist ein Bus. Kaasi waa bus. Haddaba haddii subjectigayga amba ficil sameeyahaygu yahay shay, wuxuu ka jawaabayaa su-aasha ah was. Taas oo macnaheedu yahay waa nominative subjectigayga ama ficil sameeyo. Haddaba waxaynu isticmaali karnaa oo kale nominative-ka
marka aynu ka hadlayno qof amba shay. Fair waa kuma, waa marka aad qof ka hadlaysid. Fas na waa maxay marka aad shay ka hadlaysid. Aynu eegno tusaalahan. Die Mutter fährt zur Arbeit. Hooyadu waxay u socotaa shaqada. Fair amba fair fährt zur Arbeit. Kuma u socda shaqada. Antwort jawaabtu waa hooyada ayaa u socota shaqada. Die Mutter ayaa ah subjectiga jumladda ku jira. Haddii subjectigu yahay ama ficil sameeyuhu die Mutter, nominative-ku isna wuxuu noqonayaa die Mutter. Waynu soo aragnay marka aynu ka hadlayno qof. Haddaba bal aynu eegno marka aynu ka hadlayno shayna. Die Waschmaschine geht kaputt. Mashiinka dharka uu xumaanaya amba khasaaraddu way xumaanaysaa. Was geht kaputt? Maxaa xumaanaya? Haddaba jawaabtu waxa weeye die Waschmaschine, mashiinka dharka ayaa xumaanaya. Die Waschmaschine ayaa ah subjectiga jumladda iyo nominative-kaba. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. Waan rajaynayaa inaad casharka wax badan ka wada fahanteen. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan la wadaag asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luqadda Jarmalka. Haddii aad wax su'aal ah haysid, waad igu soo weydiin kartaa barta commentiga. Haddii aad cusub tahay, fadlan subscribe si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.